heer waxay taagan 5 saac ma lahum in duhur ma laho casir ma laho maalin kasta heer baabuurta intii la istaajiyo waxay wataan laga qaatay la taagan yahay 2,000 sheegtay jeebka haday ku jirto kala baxayaan heerkaas amruna haddii sanado ka hor dadka ku nool gobolka Banaadir ee naftooda kala baxayeen dagaaladii al-shabaab iyo dawladda 10 sano kadib waxay qarka u saaran yihiin in naftooda iyo maalkooda kala baxaan kooxo burcad ah oo dharaar iyo habeen dadka baarta inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxaa si siman uga socda dhac loo geysanayo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana geysa askar ku libasan dareeska ciidamada booliiska iyo militariga iyo qaar aan wadan darees ciidan dhaca dadweynaha ayaa socon jira laga bilaabo maqribkii ilaa habeenkii 4 saac hadda waxa uu noqday mid habeen iyo maalin ah dadka ku nool degmooyinka Kaaraan Wadajir Dharkeenle Hodan iyo degmada Daynile oo ah kuwa ugu daran waxay ay sheegeen in kooxaha dhaca geysta ay beegsadaan dadka ka soo baxa masaajidda ardayda iskuulada iyo jaamacadaha iyo sidoo kale in 6 saac maalintii ay galaan suuqyada iyo wadooyinka waxaana isqabsaday qayladaanta dadweynaha oo ah in la ilaaliyo amnigooda walaalo horta tuugadu waa jirtaa waliba tuugadu hadda ewel bahashu waxay ahayd habeen kale yahay hadda waa maalcadi waa 6 saac maalmeed iyo 7 saac iyo 8 saac iyo ilaa iyo muxuu ahayto qorxo ka dhacay hadda xoogeedu oo bilaabataba laakiin ewel xogaa habeenkii maqribkii wixii ka dambeeyay jirtay ilaa 2 saac marka tuugadu waa hadda waa xad dhaaf waaye waa wuxuu tuuga waa soo dhaafeen waxa waaye hadda guriyaba la isugu soo galaaba marka dabcan wax hadda ciidanka amniga ah amba saldhiga amba muxuu ahayto qaybtana wax hadda muxuu ahayto wax ka qabanaho u diyaarsan ma hayno halkan anaga hadda waxaan ugu leeyahay iskoys la yiraahdo iskoyska oo masaajidka Turkiga wax ciidan oo joogo qoran ma jiraan marmar bay ewel hore ima jireen laakiin hadda waa ka guureenba markan yahow baahida hadda ugu weyn waa xakeenayo waa ciidan la'aantaas cabashana hadda dabcan haddaad yani aragto tuugadii oo telefoon dhacayso mooto saaran haddaad isku daydo inaad ciidankii aad wacdo ama amniga aad ku wargeliso waa saldhigi marka saldhigina waxa waaye masaafo dheer buu noo jiraa meeshan taagana waa dhacay marka maxaa weey ma burcada ma ciidan dawladeeda wuxuu wax dhacayo waxa waaye horta waxay ku libisan yihiin direeska oo ciidamada militariga iyo direeska booliiska wataan anu hadda asluub wax ku dhaca ma arkin nabad sugidna maanan arag laakiin badana waxaan aragnaa direeska militariga dadka shano wax dhaca waxaan aragnaa dharka booliiska kuwa wax ku dhacayo ma ogaa karna anagu dabcan inay markaas ciidan sax yihiin iyo inay burcad hubaysan oo qoryaha soo qaadatay inay yihiin direeska soo gatay ma ogaa karno laakiin waxaan ognahay niman hubaysan oo qoryo wato inay dadka dhacayaan oo telefoonadii aadan gurigaaga iyo telefoon kala baxda aadan la tagi karin meeshaad u socotay xaafadan dhibaato saaidan ku qabnaa maalin iyo habeen ma hargalno maalintii waan joogto oo tuugadu waa sideedii habeenkii waa ka daran oo kale marka 24 saac saasana loo dhibaa maamul degmo ma hayno taliyihii oo degmadan ku qaabilsanaa oo xaafadaha ku qaabilsanaa ma hayno gobolka ma hayno wax maamul oo iska xil saaraa degmadan Kaaraan ma jiro marka heer waxaan gaarsiinahay inay guriga la isku soo galo gabdhaheena la wato aan gaari rabnaa marka waxaan rabnaa dawladda federaalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inay arintan wax ka qabtaan iyo gobolka Banaadir degmadan Kaaraan faray ka buuxaysa marka waxaan u sheegayaa gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu degmadan Kaaraan degmooyin kale oo fiirshaa degmadan Kaaraan il gooniyo ku soo fiiriyo dadka ma adeegyada wataan kaliya baa laga dhacaa mise wadada la dhibaateeyo dadka walaalow adeeg iska dhaafay 3 kun jeebkaada hadii ku jirto waa la baxa aniga ay jeed 2 telefoon laga qaatay 2 telefoon habeen 3 saac 4 saac waxa sidoo ma socdaan asa 4 saac habeen waa laga qaatay heer waxay taagan 5 saac ma lahum in duhur ma laho casir ma laho maalin kasta heer baabuurta intii la istaajiyo waxay wataan laga qaatay la taagan yahay 2,000 sheegtay jeebka haday ku jirto kala baxayaan heerkaas amruna baaritaan aan sameeynay waxaan ku ogaanay in degmada Kaaraan ay tahay meesha ugu daran ee dadka lagu dhaco dadka moobilada laga qaatay waxaa ku jira askar ka tirsan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda oo u xil saarnaa ilaalinta amniga degmadaas degmada Kaaraan oo kamid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka Banaadir askarta booliiska ah ee ku sugan lagana sugayo amniga waxaa ka tiro badan maleeshiyaadka hubaysan ee jooga degmada kuwaas oo badankood lagu eedeeyo inay geystaan dhaca ka socda degmadaasi Kaaraan sidoo kale dilal ayaa si joogta uga dhaca waxayna dadka deegaanka noo sheegeen in saraakiisha ammaanka ee degmadaasi u sheegeen inaysan lahayn awood ay wax uga qabtaan amniga degmada askarigan wuxuu ka tirsan yahay ciidamada booliiska ee ku nool degmada Kaaraan wuxuuna qayb ka yahay dadka laga dhaca moobillo iyo adeegyo kale ay wateen طبعا واجرتها هو aniga ladeeday ugu dhacday طبعا anu hadda askari booliis aan ahay way ku dhacdo hadda telefoonkaasaan ka wataa telefoon weyn aan watay maalin dhaweed kana jeebka hoos igu jiray ka weyna gacantan ku watay waa la istaagay waxa la yiri telefoonka kan wax kale laga ma rabe wana isla qofka ma kula ciyaarahay aan si fiican u fiirshana busolado iska soo jaray
sooladii igu qabtay xogaa waxaan yiri walaalow naftiida dhaafsamaya telefoon xume waa soo gadanahay hoohaan yiri waa u taagay marka niyahow dhibkaas waa jiriya aniga ladeedeen igu dhacday dabcan marka aanu askari meeshii la iga dhaca telefoon dadka shacabka xadri kartaa waa ka sii daranta marka waxa waaye waxaan codsan lahayna marka dabcan taliya qaybta guud iyo maamulka gobolka iyo la iskaashado dabcan in meesha ciidan amni oo xaafadda amnigeeda sugi karo in la keeno waa jeclaa lahaynay waliba si khaas waxaan uga codsan lahaynay taliya qaybta guud iyo taliya booliiska in amni ku filan xaafaddu inay hesho waxay xaafadda hadda waxaan taaganahay in guriyihii noogu soo galo cabsida hadda hayso waxa waaye guriyihii in noogu soo galo kaliya waxaan ku badbaadaynaa inuu guriyaha xogaa hubnoo yaalo oo guriyo aysan markaas laakiin badanaa dadku ma wada hoysana Soomaa marka waxa waaye khatarta ugu waxa in guriyaha la isugu soo galo dadkii la dhaco gabdhihii la kufsado hantidii la dhaco wax walba telefoon kaliya ku sinaamayso qof dumar oo ka mid ah ganacsatada degmada Kaaraan waxay idaacadda kulmiye ee Muqdisho u sheegtay in 5 saac ee maalmeed laga qaatay mobile weyn kadibna lagu qasbay inay sheegto nambar sireedkeeda adeega EVC Plus iyadoo kadibna loo dhacay akoonkeeda kaasoo lagala baxay lacag dhan $400 haweeneydan oo aan ugu tagnay gurigeeda waxay ka gaabsatay inay la hadasho idaacadda kulmiye isla markaana ay faahfaahin ka bixiso dhibaatadii gaartay waxayna sababtu ku sheegtay in u baqayso amnigeeda amni darrada Muqdisho ayaa u muuqata in hadda la iskala gudbay dadka oo wadooyinka loo galo kadibna laga qaato wax ay wataan waxayna ku sii socotaa in dadweynaha gobolka Banaadir ay ku ammaan heli waayaan guryahooda kadibna la dhibaateeyo dumarka iyo carruurta haddii aysan hay'adaha amnigu la imaanin isbeddel muuqda oo degdeg ah